wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo weheliyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland ayaa maanta ka dhoofay madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera iyagoo u soo jeeda caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor intii aanu ka dhoofin madaarka caalamiga ah ee Berbera ayaa waxa uu saxaafadda uga warramay ujeedada socdaalkoodaasi isagoo tilmaamay in dalkaasi Itoobiya ay ku tagi doonaan socdaal shaqo sidoo kalena uu soo saxiixi doono heshiis la xiriira sidii dalka Ingiriisku uu qalabayn lahaa isla markaasina uu kor ugu qaadi lahaa ciidamada kala duwan ee sida laanta socdaalka iyo ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiirku arrimahaasi ka hadlayay hadaladiisii waxa ka mid ahaa waxaan u tageynaa Itoobiya safar howleed oo ku saabsan laba qodob. qodobka koowaad waxa weeye waxaan soo saxiixi doonaa heshiis afgarad oo dawladda Ingiriisku ku maalgelinayso ciidanka laanta socdaalka tababar iyo tayeyn iyo qalabaynba. kaasi waa qodobka labaad waxa weeye waxaanu saraakiil ciidanka ka tirsan dawladda Ingiriiska ka wada hadlaynaa iyo safaaradda Addis Ababa dawladda Ingiriiska ku leedahay sii wadida iyo taageerada ay ciidanka booliska siiso especially unitiyada muddada uu qaadan doono safarkiina waa masaash insha Allah aad u maasanta. safarkan ay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland ay ku tageen waddankaasi Itoobiya ayaa muddo qaadan doona isla markaasina ay ku sugnaan doonaan dalkaasi Itoobiya.